iyadoo ay abaaraha dalka ka jira saameyn caafimaad iyo mid nololeed ku yeesheen dadka iyo xoolaha deegaamada Somaliland gaar ahaan gobolka Sanaag ayaa qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Sanaag iyo hormuudka kulliyadda caafimaadka jaamacaddaasi waxay gargaar caafimaad ugu bixeen deegaanada galbeedka degmada Ceergabo sida deegaanka Caduur Halgaab kala rogta iyo degmada Yufle waxayna goobahaasi markii ay gaadheen kooxdan ka socotay qaybta caafimaadka ee jaamacadda Sanaag oo iyagu iskood isu soo abaabulay sidii ay gargaar caafimaad u gaarsiin lahaayeen dadka deegaamadaasi ee la tabaalaysan caafimaad darrada ka soo wajahday abaarta waxay daaweyn iyo baadhis caafimaad ku bilaabeen dadkii ay goobahaasi kula kulmeen oo caafimaad darro ka muuqatay jaamacadda Sanaag maxay ahayd dhaqaatiirta uu hogaaminayo Mustafa aw Muuse maxay ahayd dhaqaatiirta faraha badan ee sida wacan ee wanaagsan miyiga iyo magaalada bay isugu timi magaalada la yiraahdo Yufle dhaqaatiirta noo soo kordhay caafimaadka salaamad baan ka siiyay laabta ka soo goday baan u gudbinaynaa naga guddooma halka alle qoladan caafimaadka ee noo timi aad iyo aad baan u mahadinayaa waana shaqadu iyo dadaalkuna in halkaan nooga sii socdaan ayaan jecel tiro ahaan goobahan tagnay waxa weeyaan 4 goobood ama 5 gooboodba MCH oo 2 goobood aan ka shaqeynay iyo 3 goobood oo ah out Canada ka baxsan Canada magaalada Yufle kuwaas oo ay dadku u baahnayeen barnaamij caafimaad in badan aan research aan ku sameeynay intan anagu arday ahaan jaamacadda dhiganaynay waxaan ugu faraxsanahay inaan maanta halka u imaado fiil caafimaad oo dad bulshadayda ka mid ah gaar ahaan degmada Yufle aan in halka lagu daweeyo hormuudka qaybta caafimaadka ee jaamacadda Sanaag ee degmada Ceergabo Dr. Mustafa aw Muuse iyo Dr. Maxamed Xuseen Farjar oo gargaarkan caafimaad ee isugu jiray daawooyinka shaybaadhada iyo talooyinka bilaashka ay u fidinayeen dadka deegaanada galbeedka Ceergabo ka warbixiyay sheegayna inay sii wadi doonaan gargaarkaasi waxaan rabaa inaan ka warbixiyo safaran ugu baxnay Yufle safarka ujeedadiisu waxay ahayd laba ujeedaan ka lahayn ujeedadooda waxay inaanu caafimaadka loo baahan yahay aanu gaarsiino ummadda ku dhaqan deegaankaas Yufle iyo gaarkiisa waxaanu gaarnay meel loo yaqaan Caduur Halgaab Yufle dhexdiisa iyo meel loo yaqaan kala rogta galbeedka xigta Yufle marka waxa baxay safarka u baxay ardayda caafimaadka jaamacadda Sanaag qaybta u sareysa galaaska u sareeya oo ka koobnaa qaybta mulsooyinka qaybta shaybaarka iyo qaybta neerska halkaan kala kulnay dad aad u badan oo ay hayso baahi caafimaad dadkaas cudurro kala duwan baa hayay runtii qiyaastii markaan qiyaasno qiyaastii waxay ahaayeen 400 ilaa 500 qof u dhaxeeyay marka shaqo aad u badan ayaan soo qabanay shaqooyinka qaban waxa kamid ah inaanu siinay dawooyin bilaasha oo dadka bilaash lagu soo daweeyay waxaan kala shaqeynay shaybaarkii oo bilaasha dad qiyaastii 100 qof gaarayaan soo baarnay marka barnaamijkan waxa weeye barnaamij socon doona insha Allah tacaala oo meelo kala duwan loogu bixi doono deegaanka ah dadka abaaro iyo dhibaato ay jirto in baahidooda caafimaad laga warhayo taanu ka duulaynay shalay ardayda aan u kaxaynay ay khibradooda uga soo faa'iideynayeen dadka baahanna sidaas un bay ahayd waxaan u mahadcelinaynaa cid walba oo gacan ka geysatay aan aad ugu mahadcelinaynaa ardaydii soo ururisay ama ka qayb qaadatay contributionkii ay wax walba ka howlgaleen ee keenay inay u ogolaadaan ardayda inay shaybaadh dadka bukaanka shaybaadh bilaasha siiyaan intaa wixii ka dambeeyay waxaan u mahadnaqaynaa